dowladda Masar ayaa xabsiyada ku gurtay dhalinyaro caan ka ah barta internetka TikTok oo mid kasta ay ku xidhan yihiin malaayiin qof waxaana dowladdu dhalinyaradani ay ku eedaysay in waxay u dhiman dhaqanka qoyska ee dalkaasi isla markaasina ay soo galaan lacaga sharci darra iyadoo dhalinyaradani laga mamnuucay in dalkaasi dibadda ay uga baxaan waxa kale oo dowladdu ay xayirtay lacaga ugu jiray xisaabaad ay ku leeyihiin bangiyada fadhigoodu yahay Masar iyadoo lagu sameeynaya baaritaano dheeraada sida uu sheegay boolisku dhalinyaradani ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa lagu hayay dabagal kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa tallaabadani waxay u arkeen mid xadgudub ku ah xorriyatul qowlka oo dowladdu ay kula dagaalamayso dhalinyarada ka aragtida duwan wadanka Masar ayaa ilaa sanadkii 2013 waxa ka talisa dowlad military oo lagu eedeeyay inay ku kacdo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha laakiin waa markii ugu horeysay si cad oo beegsado dhalinyarada isticmaasha barta TikTok shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay